munaasabad kooban oo lagu qabtay saldhigga booliiska caasimadda galmudug ee dhuusamre waxaa maanta xilli kula kala wareegay taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay saldhigga booliiska taliyihii hore maxamed xasan sajeex waxaana ka qayb galay taliyaha qaybta booliiska gobolka galgaduud taliyihii hore saldhigga booliiska degmada dhuusamre ayaa ka warbaaxshay howlihii ay qabteen waxaana si rasmi ah shaqada ugu wareejiyey taliyaha cusub ee lasoo magacaabay maxamed meeshii ka sii wadnay askarta taqaano waaye sidii kula shaqay jireen si ka sii fiican ila shaqay jireen ayagana waxaan rajaynayaa insha Allah inay sidii iyo si ka sii fiican aad maxaad ula shaqay doontaan waa taliyihii aniga ma ahane qof cusub kala ma ahan hore taqaaneen waxaan rabaa anaga wax badan waa ka bedelna askartii wax badan naabsan hadda shaqadii lahaa waa ka imaanayaan laakiin qofkii waxaan dhihi karnaa 80 horumarka ugu fiicnay ugu wanaagsanay ayaan ka suubinay waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo liiska ciidanka iyo wixii howlihii dhammaan rabaa inaad insha Allah taala taliyaha cusub ee dhowaan taliska ciidamada booliiska dowladda federaalka u soo magacaabeen booliiska dhuusamre ayaa sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan ammaanka deegaankan shacabka deegaankan ayuu ka dalbaday inay la shaqeeyaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa ciidanka waa la soo shaqeeyay dad badan ma raggii la soo shaqeeyay waa dhammaantood weey hadee waqti kululna waa la joogaa howlo badanna way noo yaaliin insha Allah taala waa wixii ballanka iyo dibaan u dhiganayna waa mahadsantiin qalbi axmed cali taliyaha qaybta booliiska gobolka galgaduud ayaa hasna halkan ka hadlay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii wanaagsan ee soo qabtay waxaan rajaynayaa taliyaha cusub oo saldhig inuu ka sii wadi doono shaqada meesheeda inuu ka sii wadi doono wixii shaqadii qabya ka ahaan uu dhamaystiri doono insha Allah waana sunnada dawliga in hadda qofka maalin uu la wareego shaqada qof meeshii joogayana ma jiro qofka maalin uu shaqada la wareegayaa waxaa إن شاء الله تعالى حرجينا يا طليعة صديقة لكن معفرة الله شغالين دونتان ومعميرتا يا نظام الدولي جاي كلا دبيتا من قادة دونتان إن شاء الله تعالى وأنا شغالين دونا وأنا وشغلنا taliska ciidamada booliiska dowladda federaalka ayaa isbedel ku sameeyay qaar ka mid ah salgida booliiska degmooyinka galmudug xasan axmed maxamed hirshabelle TV galmudug